kulan wacan daawadayaal halkan waa channelka Halgan Media kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah agaasimayaal dawladeed iyo ganacsato wajahaya xukun u dhaxeeya 9 sano ilaa 3 bilood Shariif Xasan oo sanado kadib dib ugu soo laabtay dalka Axmed Madoobe iyo Dani oo war xasaasi ah ka saaray shirkoodii Garowe sargaal ka tirsan al-shabaab oo isku dhiibay maamulka Koonfur Galbeed Fahad Yaasiin oo ka shaqeynaya in xilka laga qaado Xasan Showte iyo xiisada u dhaxaysa Tanzania iyo Kenya oo sii xoogeysatay waa khamiis taariikhduna ay ku beegan tahay 27 Agost 2020 u diyaar garooba saaxiibayaal qodobada warka daawateen dhameystiran agaasimayaal dawladeed iyo ganacsato ayaa wajahaya xukun u dhaxeeya 9 sano ilaa 3 bilood agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibrahim madaxa hubinta iyo kontrolka ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda Ali Sheekh Doona Cabdi Aweys Xasan Umar xisaabiye ka tirsan waaxda wasaaradda raafinta iyo qadar Aweys Xasan maamulka shirkadda Al Habib Business Center ayaa maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ku riday xukunno isugu jira xarig ganaax lacageed iyo in laga mamnuucay xafiisyada dawladda agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibrahim waxay maxkamaddu ku xukuntay 10 sano oo xariga iyo ganax lacageed oo gaaraya $2366 iyo inuu qasnada dawladda ku celiyo $137,907 milkiilaha shirkadda Maamuus Journal Center iyo madaxa hubinta control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda Ali Sheekh Doona Cabdi waxaa lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah iyo ganax lacageed oo dhan $3,549 in qasnada dawladda uu ku celiyo $58,505 ganaxa waxa uu heliya in laga mamnuucay xafiis dadweyne Aweys Xasan Umar xisaabiye ka tirsan waaxda wasaaradda raafinta waxaa lagu xukumay 9 bilood oo xarig ah iyo ganax lacageed oo dhan $1,183 qadar Aweys Xasan maamulka shirkadda Al Habib Business waxaa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyo ganax lacageed oo dhan $1,183 waxaana dhammaan mas'uuliyiinta lagu xukumay ay maxkamaddu sheegtay inuu furan yahay racfaan ku siman muddo 30 cisho ah Shariif Xasan ayaa sanado kadib dib ugu soo laabtay dalka madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka isagoo 2018 ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya Shariif Xasan oo haatan ah gudoomiye ku-xigeenka madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa garoonka diyaaradaha dhinacyo ku soo dhaweeyay maanta mas'uuliyiin kala duwan sida xildhibaano iyo wasiiro ujeedka safarkiisa ayaa waxaa lagu sheegay inuu qayb ka yahay isbeddelka siyaasadeed ee dalka isagoo ka qayb qaadan doona arrimaha doorashada ee 2020-2021 sidoo kale waxaa la filayaa inuu kulamo ka bilaabi doono gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya isagoo markii hore la fiirsan doona madaxweynayaashii hore ee dalkan Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed oo haatan ay saaxiibo dhow yihiin sidoo kale Shariif Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dalkan ay muhiim tahay in 4 sano kasta ka dhacdo doorasho xilkuna uu yahay qoriisa tuur isagoo eedeyn kulana u jeediyay mas'uuliyiinta dalkan Soomaaliya kadib markii Muqdisho u yimid warbaahintan oo ka soo hormuuqday Axmed Madoobe iyo Dani ayaa war xasaasi ah ka soo saaray shirkoodii Garowe madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa maamihii u dambeeyay shirar ku lahaa magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal iyagoo soo saaray saxaafadeed ku aadan waxyaabihii ay ka wada hadleen qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in ay ka arinsadeen xaaladda guud ee dalka si loo gaaro xal siyaasadeed ka hor doorashooyinka 2020-2021 sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in ay wada hadal dhanka telefoonka ah la yeesheen madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada isla markaana ay isla garteen in xal mideysan laga gaaro xaaladda dalkan gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka warmutiyeedka ay soo saareen Axmed Madoobe iyo Dani ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay wada hadal la geli doonaan dawladda federaalka isla markaana ay iman doonaan Muqdisho oo uu ka dhici doono shirweyne wada tashi ah oo dhexmari doona madaxda dawladda dhexe kuwa dawlad goboleedyada iyo saamilada dalka ee siyaasadda ugu dambeyn waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka in ay labada dhinac ka wada hadleen iskaashiga ka dhaxeeya Jubbaland iyo Puntland sargaal ka tirsan al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada Koonfur Galbeed wararka ay naga soo gaaraya gobolka Baay ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in sargaal ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab uu isu soo dhiibay ciidamo ku sugnaa degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay ninkan oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Cabdi Xasan ayaa la sheegay inuu muddo dhowr sano ka tirsanaa ururka al-shabaab isla markaana uu ka howlgalayay tuulooyin hoostaga degmadaasi
sargaal ka tirsanaa al-shabaab ee ciidamada isku soo dhiibay ayaa waxa uu watay qori AK-47 ah iyo booshkiisa, waxaana saraakiishu ciidamadu ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ku wareejin doonaan. saraakiisha koonfur galbeed ayaa sheegay in isdhiibista sargaalkan ay timid maalmo kadib markii weeraro xoogan ay dagaalada al-shabaab ku soo qaadeen saldhigay ciidamada dowladda ku lahaayeen koonfur galbeed Soomaaliya. al-shabaab dhankooda wax war kama soo saarin sargaalkan koonfur galbeed sheegtay inuu iska soo dhiibay dhanka al-shabaab ee ku sugan deegaanada maamulkaasi. maxaa ka jira in Xasan Cali Kheyre laga celiyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde? siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlayay munaasabad lagu qabtay Dhuusamareeb ayaa sheegay in weli dowladda Soomaaliya ay wado tacadiyada ayaa ku hayso siyaasiyiintii iyo mas'uuliyiintii hore. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qudbadiisii ku sheegay in garoonka Aadan Cadde shalay lagu celiyay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkan Xasan Cali Kheyre kadib markii ay horsaag ku sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. ma shaacin halka uu ku jeeday Kheyre, balse wuxuu tilmaamay in loo adeegsaday ciidamo uu dhisayay 3 sano ee uu risaalaha ahaa dalkana ka talinayay. halgan media ma xaqiijin karo warkan uu shaaciyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo la xiriirnay ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan falkaasi la sheegay in lagula kacay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dalku uu ku jiro xaaladda cakiran iyo marxalad kala guur ah oo la isku diyaarinayo doorashooyinka 2020-2021. Qatar ayaa ballanqaad muhiim ah u sameysay Galmudug. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo maalmahan ku sugan Muqdisho ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya Xasan bin Hamza. kulanka ay labada mas'uul waxay uga wada hadleen arrimaha horumarinta Galmudug iyo kaalinta ay dowladda Qatar ka qaadanayso dib u dhiska hay'adaha kala duwan ee dowlad goboleedka Galmudug. sidoo kale wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in kulankan la isku soo qaaday sidii dowladda Qatar ay Galmudug uga caawin lahayd dhismaha ciidanka daraawiishta Galmudug si ay uga qayb qaataan sugidda amniga deegaanada maamulkaasi. dowladda Qatar ayaa waxa ay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya, waxaana sidoo kale la sheegaa in ay saaxiib dhow yihiin dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo, inkastoo ay jiraan dowlado iyo siyaasiyiin qaarkood dhaliilo u jeediya Qatar. dowladdan Qatar ayaa hore waxa ay ballanqaad u sameysay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada sida koonfur galbeed, Hirshabelle, Puntland, Jubbaland iyo Galmudug, kuwaas oo qaarkood ay fulisay qaarna weli aysan fulin. xildhibaanada Hawiye ayaa looga yeeray Villa Soomaaliya ayaa go'aan la yaab leh qaatay. shalay waxaa baraha bulshada iyo qaar ka mid ah warbaahinta qabsaday fariin qoraal la sheegay in ay ka timid madaxweyne Farmaajo oo uu kulanna isugu yeeray xildhibaanada ka soo jeeda beesha Hawiye. saacado kadib waxaa soo baxay isla fariin qoraal kale ah oo la sheegay in ay ka timid madaxweynaha oo lagu baajiyay kulankaas oo qorsheysnaa caawa, iyadoo sababtana lagu sheegay in xildhibaanada ay diideen kulanka. hase yeeshee dadaal aan sameynay ayaan ku ogaanay in labada fariin qoraalba ay ahaayeen kuwa aan waxba ka jirin, mana jirin wax kulan ah oo madaxweynuhu isugu yeeray xildhibaanada Hawiye. laba il wareed oo ka tirsan Villa Soomaaliya iyo kuwa ugu yaraan 3 ka mid ah xildhibaanada Hawiye ah ayaa halgan media u sheegay inaanu jirin wax kulan ah oo madaxweynuhu qorsheeyay. labada qoraal ayaa la rumaysan yahay in ay abuureen dad doonayay in ay jahwareer abuuraan, mana cadda danta ay ka lahaayeen arrintaasi. Fahad Yaasiin ayaa ka shaqeynaya in xilka laga qaado Shuute. ila lagu kalsoon yahay ayaa halgan media u sheegay in muddo ku dhow bil uu madaxweyne Farmaajo ka gaabsanayo in uu cusboonaysiiyo waqti xileedkooda madaxda maxkamadaha ciidamada oo 2 sano mar la cusboonaysiiyo. khilaafka Fahad Yaasiin iyo maxkamadda ciidamada ayaa ka soo biloomay kadib markii ay isku qabteen arrinta Maxamed Xaaji Ilkacsi oo ah madaxii amniyaadka al-shabaab, kaas oo bilo ka hor ciidamada amniyaadku ay qabteen. warar ayaa sheegay in taliye Fahad Yaasiin uu dalbaday wada shaqeyn Ilkacsi, balse ay ogaadeen madaxda maxkamadda ciidamada inuu yahay shakhsi halis ku ah ammaanka caasimadda, sidaasna ay ku xireen. balse arrintaasina faragelinta waxaa ka carooday taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo isku dayay in maxkamadda la geeyo Ilkacsi. sidoo kale maxkamadda ciidamada ayaa ka warheshay dad si qarsoodi ah ay ku dileen NISA oo qaarkood la soo dhigay meydadkooda duleedka Muqdisho iyo nin watay mooto bajaaj oo isna ay si qarsoodi ah u dileen NISA. hase yeeshee mootadiisii muddo kadib booliisku ku qabteen dhar cad nabadsuud ka tirsan, waxaana ay arrintaas cirka ku sii sharartay xiisadii jirtay, iyadoo maxkamaddu ka dalbatay Fahad Yaasiin inuu sharciga hor keeno ciidanka u shaqeeya isaga oo sida qarsoodiga ah dadka ku dila. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo madaxweynaha ka agdhow waxa uu dagaal ku qaaday madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida xogtan aynu ku helnay. madaxweynaha qaranka Farmaajo ayaa lagu qanciyay inuu sanna u cusboonaysiin waqti xileedka madaxda maxkamadda ciidamada oo ah halka kaliya dhabka ku yahay dagaalka lagula jiro al-shabaab, sida xogtan aynu ku ogaanay. ugu dambeyntii xiisada u dhaxaysa Tanzania iyo Kenya ayaa markan sii xoogaystay.
Tanzania ayaa mamnuucday 3 kale oo diyaarado ah oo Kenya laga leeyahay iyadoo uu sii xoogeysanayo muranka u dhaxeeya labadan dal ee dariska ah ee la xiriira COVID-19. waaxda ku shaqada leh diyaaradaha dalka Tanzania Tika ayaa mamnuucday diyaaradaha Fly 550 Air Kenya Express iyo sidoo kale Safari Link Aviation. diyaaradaha ayaa maalin walba u duula goobaha dalxiiska ee Kilimanjaro iyo Zimbabwe. sababta loo mamnuucay 3 diyaaradood ee Kenya laga leeyahay ayaa waxa muranku u dhaxeeya labada dal. waxaa sidaas yiri Hamza Johari oo ah agaasimaha guud ee waaxdaasi. madaxweyne John Magufuli ayaa bishii June ku dhawaaqay in Tanzania uusan ka jirin coronavirus. dowladdiisa waxaa lagu cambaareeyay sida ay isaga dhex tirtirtay xanuunka coronavirus. guud ahaan daawadayaal waa naga inta wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo kulan dambe nabadgelyo.